Assalaamu calaykum dhammaan asxaabteena qiimaha leh. Ku soo dhawaada maanta iyo muuqaal cusub oo xiiso leh. Challenge-ganna waxaa sameeyey Mr. Beast waxaana uu qabanayaa afartiisa saaxiib. Waxaana niga codsanaya inaad muuqaalkan like saartaan. Subscribe-tuna waa noo muhiim si aynu u gaarno 500 oo subscribe. Waxaanu challenge-gan ku saabsay 100,000 ayaa uu ku guuleysanaya hal qof oo waxaa la rabaa inuu helo furahaas oo uu ku furo khasnadaas. Waxaana uu qabanayaa afartiisa saaxiib. Waxaana la rabaa inay challenge-gan ka bilaabaan isla markiina waxay bilaabayeen isu dayay inay ka gudbaan dhalada. Chris ayaana bilaabay inuu ka boodo dhalada xaggeeda sare waxaanu noqonayaa qofkii ugu horreeyay ka gudbaa. Halkaas ayaanu ku guuleysanayaa dhammaantoodna halkan ayaa ay ku yaaban yihiin oo waxaa loo furayaa khasnadii waxaana noqonaysaa mid maran. Waxaana loo sheegay inaanu ahayn kan challenge-gii ugu dambeeyay uu yahay challenge-gii koowaad. Lacagta ay ku guuleystaan iyagu qaadan maayaan ee waxaa la siinayaa aabbayaashood. Waxaana loo gudbayaa challenge-ga labaad oo ah laysarkan in laga gudbo. Waxaa la rabaa inaanu meel kaliya aanu ka taaban oo jidhka ka mid ah oo waxa ugu horeynaya Chandler iyo Nolan oo waxa iska ilaalinaya inuu qabto laysarkaas ama uu daaro. Waxaana ugu horeynaya Nolan oo ah guuleysta challenge-ga labaad. Halkan ayaana isku foodeynayaan waxaana loo furayaa khasnadii. Waxaana u soo baxaysa waraaqadan cad oo ay ku qoran tahay in challenge-ga saddexaad la siin doono boonbalahan. Waxaana loo gudbayaa challenge-ga saddexaad oo ah qolkan oo caagagaas ka wada buuxaan waana 1 milyan oo caag. Waxaana la rabaa inay ka soo saaraan fure dhexdiisa oo halkan ayaa ay aabbayaashood ka daawanayaan challenge-ga. Waxaana loo sheegay inay bilaabi karaan challenge-ga. Nolanna halkan ayaa uu ku sitaa boonbalii loo sheegay inuu ku guuleystay. Halkan ayaa iyaguna ay ka raadinayaan furihii oo aabbayaashood waa ay dhiirigelinayaan. Chrisna isagoo caagagii iska laadlaaday ayaa uu helayaa furihii waxaanu noqonayaa guuleystay challenge-ga saddexaad. Isagana markiisa ayaa loo furi doonaa khasnadii. Waxaana u soo baxaysa warqadan waxa ku qoran inuu ku guuleysto $100,000 aabihii amba inuu qaato gaadhiga Tesla oo waxaa loo gudbayaa challenge-gii afaraad oo waxaa la rabaa intaanu albaabkaasi soo degin inay ka gudbaan. Dhammaantoodna indhaha ayaa laga xirayaa. Hal mar ayaanu ku odhanayaa ka gudba Mr. Beast oo Carl ayaana markan kale ku guuleysanaya. Waxaana loo furayaa khasnadii waxaanu ku guuleysanayaa aabihii $10,000. aad ayaanu u farxayaa isaguna oo aabihiina saddexdii wiilee kale ayaa halkan kula kaftamaya oo waxaa loo gudbayaa challenge-gii afaraad oo waxaa laga rabaa inay furaha soo dejiyaan. Waxaana loo keenayaa agabkan carruurtu ay ku ciyaarto. Waxaana la rabaa inay ku soo dejiyaan oo Nolan ayaana ugu horeynaya waxaana ku tuurayaa qalabkii carruurta. Mr. Beast-na waxa uu sheegay in laga rabo inuu furaha uu ku boodo amba uu qalabka carruurta ku istaago oo ma jiro qof weli soo qabtay furihii. Chandler oo wixiisa iska wata ayaa waxa uu imanaya Chris oo ka burburinaya alaabtiisii. Chandler ayaana isku dayay inuu ku boodo furaha. Nasiib wanaag waa uu qabsanayaa. Sidaas ayaanu ku noqonaya tartamii ku guuleystay challenge-ga afaraad. Waxaana loo furayaa khasnadii. Waxaana u soo baxaysa isagana waraaqadan. Waxaana la ogeysiinayaa challenge-ga ku xiga hadduu uu guuleysan waayo unba uu tartamaha koowaad uu noqon waayo inuu ka baxayo challenge-ga. Waxaana loo gudbayaa challenge-ga shanaad oo waxa uu challenge-gan ku saabsan inuu marna laysarkaas uu soo baxayo marna uu dib u noqonayo oo waxaa la rabaa inaanu marna taaban qofna. Waxaana lagu odhanayaa bilaaba challenge-ga. Chandler ayaana ugu hor bilaabayaa oo midda ugu horreysa waa uu ka gudbayaa talabaadna waa uu ka gudbayaa. Saddexdii kalena waxa uu ka odhanayaa maxaad u soo dhaqaaqi la'diin oo aad la taagan tihiin. Chandlerna marba mid ayaa uu ka sii gudbayaa oo waxa soo dhaqaaqaya saddexdii kale. Chandlerna waxa uu hadhay midii ugu dambeysay oo haddii uu ka gudbo waa uu guuleysanayaa waanu ka soo gudbayaa. Waxaana la isu qabsanaya inuu taabtay xariijinta balse markii faarta la aado waxaa la ogaanaya inuu ka gudbay challenge-ga oo waxa uu noqonayaa guuleystaha waanu ka badbaadaya inuu ka baxa challenge-ga. Waxaana loo furayaa khasnadii. Waxaana u soo baxaysa waraaqadan oo ay ku qoran tahay waxaan rajaynayaa inaad tahay Chandler. Isaguna waa uu naxayaa. Kanna waa challenge-gii lixaad oo albaabkaasi waa kii laga gelayay challenge-ga toddobaad oo waxaa la rabaa inay ka gudbaan shabaqan oo korontada leh. Waxaana la rabaa inay iska ilaaliyaan korontadaas oo ay ka gudbaan challenge-gan oo qofkii si khaldan u taabtana korontadu waa ay ku dhegaysaa oo markiiba Chris ayaa uu ka dulboodayay shabaqii korontada oo waxuu noqonaya tartamihii koowaad ee si fudud kaga gudba challenge-yada. Sidaas ayaanu ku guuleysanayaa oo waxaa loo gudbayaa challenge-ga toddobaad oo ku saabsan codayn oo qofkii ugu cod bata ayaana ku guuleystay.
guuleysanaya challenge-gan oo waxaa loo sheegaya inay u codayn karaan qof kastoo ay jecelyihiin. ugu horreynta waxaa loo codaynayaa Carl, codka labaadna waxaa helaya Nolan oo 2 qof bes ayaa loo codeeyey. codka saddexaadna waxaa helaya Nolan. codka ugu dambeeyay la sugayna waa codka Chandler, waxaanu u codaynayaa Chris. waxaana challenge-gan ku guuleysanaya Nolan, waxaanu wacayaa aabbihii, waxaanu tusayaa waxa uu soo baxay, waxaana u soo baxday waraaqadan. waxaanu challenge-ga ku xiga heli doonaa qalabka lagu baadho macdanta. challenge-ganna waxa uu ku saabsan yahay in ciidda laga baadhi doono furaha. Nolanna qalabkiisa ayaa la siinayaa, waxaana bilaabaya inay raadiyaan oo dhammaantoodba Nolan ayaa ay daba socdaan oo waxa uu sitaa qalabka. meeshan ayaanu qalabku ka qaylinayaa, hal mar ayaanay gacanta wada gelinayaan, waxaanay ka soo saareen dhagaxaas oo waa ay iska tuurayaan. dambayntana Nolan ayaa helaya furihii, sidaas ayaanu ku noqonaya guuleystaha. aabihiis ayaana u furay khasnada, waxaana ku guuleysanaya $5,000. saddexdii kalena halkan ayaa ay ku yaaban yihiin oo markii hore uu khasnada u Chris furanayay waxaa ka saarnaa daah madow oo lacagtu waxay taallay xagga dambe ee daaha, sidaas ayaanay lacagtu ugu badbaaday. waxaana loo gudbaya challenge-gii ugu dambeeyey oo ah challenge-gii ugu horreyntii oo waxaa la rabaa inay khasnadan furtaan oo meeshii uu Chris ka boodayna waxaa lagu xidhay musmaaro. waxaana loo sheegay inay bilaabi karaan challenge-ga. dhammaantoodna waxay isku dayayaan inay jebiyaan dhaladan oo waxay isku dayayaan wax kastoo ay haystaan inay meesha ku tuuraan. aabbayaashoodna meeshan ayaa ay ka daawanayaan. islamarkiiba waxay dhaladu u jabaysaa Nolan, waxaanu soo qaadanayaa kursi, meesha ayaanu dhiganaya, waanuu ku istaagayaa, sidaas ayaanu uga soo baxayaa, waxaanu noqonayaa guuleystii challenge-yada oo dhan. halkaas ayaanu khasnada ku furanayaa isagoo aabbihii video call ugu jiro, waxaanu tusayaa lacagta oo dhan. aad ayaanu u dabaaldegayaa oo aabbihiis ayaa uu lacagta tustusayaa, aad ayaanu u faraxsan yahay. waxaanu Mr. Beast inoo sheegayaa qofkii xiinjana subscribe-ta u saaraa inuu 10,000 uu siinayo. haddaba challenge-gan 10,000 imise ayaad siin lahayd? challenge-gan aad ayaa ugu xiiso badnaa aniga ahaantay. isku day inaad na soo raacdid oo aad muuqaalkana aad leeg saartid.